بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socotay dalkeenba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo tabinta iyo taxliilinta wararka caalamka oo aad si toos ah uga daawanaysaan intaan waxaan idin leenahay soo dhawaada qodobadaan idin kugu hayo muuqaalka labaad ee caawana waxa ka mid noqon doona Mareykanka ayaa wajh siyaasadeed oo qurux badan u sameynaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyadoo laba mas'uul oo sare oo si aad ugu dhow madaxweyne Trump ay ku sugan yihiin aqalka looga taliyo Tel Aviv isla markaana ay ka soo muuqdeen shirka golaha wasiirada Jared Kushner iyo Steve Witkoff ayaa si la yaab leh u amaanay Trump waxna aan iraahday u amaaneen Netanyahu waxna ay ku tilmaameen haliyay kaalin nabadda iyo dagaalkaba wax ka galay marka la fiiriyo gobolka bariga dhexe waxay haatan tilmaamayaan inay dhisayaan sumcadiisa marka la eego qubarada sida ay u taxliilinayaan shirarka ay ka soo muuqdeen labada sargaal oo Mareykanka Jared Kushner ayaa waxa uu yahay wiilka uu sodogga u yahay Trump waana saacadihii la soo dhaafay uu fadhiyay miisaska talada Israa'iil iyadoo wasiirada xaq jirka ee nidaamkana lagu amray in ay talooyinka ay soo jeediyaan Mareykanka aysan dhinac uga leexan haddaba suuragal ma tahay Netanyahu fadeexooyinka caalamiga ah oo wajahayo inay ka badbaadiyaan tilaabooyinka dowladda Mareykanka ay qaadayaan barnaamijka ayaan caawa ku lafaguri doonaa qodobkaasi oo si weyn ay u faaleynayaan warbaahinta kala duwan ee Israa'iil madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo la filayo Isniinta inuu soo gaaro gobolka bariga dhexe ayaa la qorsheynayaa in shir heer caalami ah uu ku qabto magaalada Sharm el-Sheikh shirkaas ayaa loogu yeeray inta badan dowladaha ladan ee adduunka waxaana safka hore ka soo muuqday dowladaha la casuumay kuwa Carabta oo la doonayo in laga qaado lacagaha lagu dhisayo magaalada go'doonsan ee Marinka ay burburiyeen ciidamada Israa'iil waxaana dowladahaasi ka mid ah Sacuudiga dowladda Faransiiska ayaa tilmaantay in tallaabooyinka Trump uu qaadayo ay tahay mid bogaadin leh isla markaana dowladda Paris ay kala shaqeynayaan sidii fursad kasta oo nabadeed loo abuuri lahaa waxaana muuqanaya in Israa'iil deegaanadii ay burburisay ay haatan lacagtooda laga qaadayo dowladaha Carabta si maalgelin loo sameeyo oo loo dhiso dhulkaasi suuragal ma tahay in fadhigaasi Netanyahu uu ku soo biiray isla markaana uu soo bandhigo dalab ku saabsan in maadaama waxyeello ay ka soo gaartay dagaalada bariga dhexe deegaano ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta ay ka haystaan oo isna yiraahdo dhaqaalaha iman doona waxa la iga siiyo barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan akhyaaray inta waxaan ku dari doonaa oo aan falanqayn doonaa war xasaasi ah oo ka soo baxay kooxda Hamas waxay leeyihiin marnaba ma aqbali doono tallaabooyin hal dhinac ah oo hal dhinac lagu cayilinayo oo ka dhaca heshiiskaasi waxa hadlay ninka marsuuqa lagu magacaabo waxna uu yiri marka la fiiriyo qaabkay wax u socdaan meelaha qaar waa kuwa soo dhaweyn leh laakiin waxaynu abaabuli doonaa shir ballaaran oo isugu iman doonaan qaybaha kala duwan ee Falastiiniyiinta waxaynu rajaynaynaa in ilbaxnimo iyo hanaan dowladnimo ku dhisan la gaaro wax kasta oo masiirka shacabka taabanayana ma yeelan doonto hal dhinaca kale maxay ka yiraahdeen kooxda ciidamada Mareykanka ah ee suuragalka ah inay yimaadaan gobolka bariga dhexe gaar ahaan dhulka Falastiiniyiinta wacad iyo dhaar ayay ku dareen inaysan aqbali doonin in ciidda iyaga u gaarka ay gacanta soo dhigaan balse waxay yiraahdeen waxba inagama gelin haddii dhinaca Israa'iil ay joogayaan meel kasta oo aad nagala socotaan waxaan idin leenahay soo dhawaada haddii aad ku cusub tihiin YouTube-ka subscribe saara wadaaga muuqaalkan saaxiibadeen isla markaana meel kasta oo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtigu ha idin samaado aan ku horeeyo gobolka bariga dhexe wararka waaweyn ee caawa ka imanaya madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa maalinta Isniinta ah ee soo aadan inuu soo gaaro gobolka bariga dhexe baarlamaanka Israa'iil ee kaniisad loo yaqaano ayuu ka jeedin doonaa khudbad xasaasi ah oo taabanaysa geedi socodka nabadda iyo waliba maxaabiista la sii daynayo ee labada dhinaca kale waxa uu Trump ka warrami doonaa dadaalada uu ku bixiyay nabadda markan waxa muuqanaya Mareykanku inay sameyn doonaan sumcad ay u dhisayaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo dareemaya wajagabax siyaasadeed oo weyn maadaama Mareykanku ay cadaadis sameeyeen bogga wararka ee Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa tilmaamay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa haatan si weyn loo diyaarinayo dhinaca kale Trump ayaa isla maalintaasi la filayaa in uu gaaro magaalada Sharm el-Sheikh iyo guud ahaanba dalka Masar qaybo kala duwan oo ka mid ah marka laga yimaado in Cabdi Fataax al-Siisi uu kulan la qaadan doono haddana wuxuu abaabulayaa shir weyn oo caalami ah oo dowlado fara badan oo dhaqaale haysta ay ka qayb gali doonaan
waxyaabaha ugu weyn ee miiska iyo talada gorfaynta la isla yeelan doona ka mid ah sidii loo yaboohi lahaa qaaraan aruurin lacageed oo la doonayo in dib loogu dhiso magaalada ciidamada Israa'iil ay dukum daakumta ka dhigeen ee Gaza. Haatase waxaa la doonayaa in dowladaha la casuumay ay noqdaan kuwa dhaqaalaha ugu badan laga qaadayo. liiska hore ee wadamadaasi waxaa ka soo muuqday dalal ay ka mid yihiin Urdun iyo sidoo kale dowladda boqortooyada Sacuudi Arabiya. Trump waxa uu leeyahay waxaa la gaaray xilligii nabadda oo cid walba ay dooni lahayd in ay kaalin ku yeelato dhismaha magaaladaasi. warbixin uu daabacay bogga wararka ee Axios ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi Donald Trump uu qorsheynayo inuu qabto shir caalami ah oo madaxda iyo wasiirada amuuraha dibadda oo dalal badan ay ka qayb galaan xilli uu booqan doono Masar toddobaadka soo socda sida warbixintu ay tilmaantay. shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa dib u dhiska magaalada ay colaaduhu burburiyeen ee gobolka bariga dhexe ee dhulka Falastiin ku taala iyo hirgelinta qorshaha Trump ee nabadda iyo dib u dhiska magaaladaasi. ujeedada shirka waxaa lagu sheegay sida laga soo xigtay 4 il oo xog ogaal ah. Trump waxa uu doonayaa in shirkan uu noqdo munaasabad lagu ururinayo taageero caalami ah oo lagu xoojinayo qorshaha ku wajahan maamulka iyo amniga magaaladaasi kadib dagaalka sida uu qeexay. waxaa la filayaa in shirka lagu casuumo madax kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirada amuuraha dibadda ee dalalka Jarmalka, Faransiiska, boqortooyada Ingiriiska, Talyaaniga, Qatar, Imaaraadka Carabta, Urdun, Turkiga, Sacuudi Arabiya, Pakistan iyo dalka Indonesia sida ka dhex muuqanaysa warbixinta uu sii daayay wargeyskan. Masar waxay qaadan doontaa baa la yiri dool martigelina oo cajiib ah iyadoo madaxweyne Al-Sisi oo ka muuqanaya fagaaro diblomaasiyadeed oo caalami ah oo dhibco waaweyn ay ku qaateen wadankaasi. shirka waxaa lagu qaban doonaa magaalada Sharm el-Sheikh ee koonfur bari Masar, halkaas oo aan horey uga socdeen baa la yiri wadaxaajoodka heshiiska xabad joojinta ah ee magaaladaasi go'doonsan la doonayo in lagu gaaro. waxaa la sheegay in shirka si rasmi ah uu martigelinayo madaxweyne Al-Sisi kaas oo horey u diray casuumaad rasmi ah madaxda dalal Carbeed iyo kuwa Yuruba intaba. sida laga soo xigtay la diblomaasiyadeed Trump iyo Sisi ayaa sidoo kale ka qayb galaya munaasabadda saxiixa heshiiska xabad joojinta ah taas oo lagu qaban doono dalka Masar. Jarmalka ayaa jadwalka booqashada Trump ayaa waxa loo dhigay si heer sare ah sida ka dhex muuqanaysa warbixinta Axios. Isniinta soo socota waxa uu gaari doonaa Israa'iil halkaas uu khudbad ka jeedin doono baarlamaanka Israa'iil ee kaniisad loo yaqaano isla markaana uu la kulmi doono qoysaska maxaabiista weli ku sugan gacanta Falastiiniyiinta. doornimada Isniinta waxa uu safar ku bixin doonaa magaalada Qaahira si uu la kulmo madaxweyne Sisi ugana qayb galo munaasabadda saxiixa heshiiska magaalada go'doonsan oo ay garwadeen ka yihiin dalalka Masar, Qatar iyo Turkiga. shirka caalamiga ah ee magaalada ayaa la filayaa in la qabto subaxnimada Salaasada, balse ila xog ogaal ayaa tilmaamaya inay suuragal tahay in waqtiga laga soo hormariyo oo isla Isniinta haddii waqti loo helo la qaban doono. waxaas la leeyahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa qudhiisa wata dalab cajiib ah oo ku saabsan shirkaasi, waxaana la qorsheynayaa in uu ka mid noqdo dadka sida gaarka ah ee shirkaasi uga maqnaan doono ee aan lagu marti qaadin ilaa iyo hadda. marka dhinaca kale la fiiriyana dowladda Mareykanku waxay dhisaysaa sumcadda siyaasadeed ee ra'iisul wasaare Netanyahu oo haatan wajahaya mushkilad weyn oo siyaasadeed oo gudaha ah isla markaana fashil uu kala kulmay dagaalkii uu la galay Falastiiniyiinta gaar ahaan magaalada colaaduhu ay ka taagnaayeen ee Gaza. muuqaal lagu arkay xafiiska ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa la soo bandhigay iyadoo ay hareer fadhiyaan Steve Witkoff oo ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe iyo Jared Kushner oo ah wiilka sodogga uu yahay Trump isla markaana dhaliya baa la yiri su'aalo badan muuqaalkaasi weeyaane oo ku saabsan fariin siyaasadeed ee sawirkaasi uu xambaarsan yahay xilli Israa'iil ay ku jirto marxalad adag oo xasaasi ah isla markaana qulqulatooyin maxalli ah ay ka taagan yihiin. sawirka uu soo bandhigay xafiiska Netanyahu ayaa la qaaday intii lagu guda jiray kulankii golaha wasiirada ee lagu ansixinayay wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ee iswadaarsiga maxaabiista lala galay Falastiiniyiinta, kaas oo la sheegay in lagu heshiiyay magaalada Sharm el-Sheikh isla markaana uu dhaqan gali doono ama dhaqan galay maalintii Jimcada ahayd. fariinta cad ee haddaba muuqaalkaasi ka dhex muuqanayay
ayay falanqeeyayaal kala duwan ay ka warbixiyeen. falanqeeyaal siyaasadeed ayaa u sheegay wargeyska Sky News Arabic ee laga leeyahay dalka Imaaraadka in joogitaanka Kushner iyo Witkoff uu yahay fariin cad oo muujinaysa in Mareykanka wali uu taageerayo Netanyahu xilli uu wajahayo cadaadis siyaasadeed oo gudaha ah iyo in uu doorashada soo socota sanadka dambe, taas oo ay yiraahdeen waxa ay sare u qaadaysaa fursadiisa sii joogitaanka xafiiska iyo talada. warbaahinta Israel sida wargeyska Times of Israel iyo channelka 12aad ee nidaamkaasi ayaa sheegay Witkoff iyo waliba Kushner in ay door muuqda ka qaateen wada xaajoodka heshiiska, isla markaana joogitaanka uu yahay qayb ka mid ah kormeerka Mareykanka ee fulinta qodobada heshiiskaasi. intii uu socday kulanka Kushner iyo Witkoff ayaa waxa ay si weyn u ammaaneen go'aanka adag ee Netanyahu qaatay maadaama dagaalka nabad iyo colaadba uu wax ka galay, aadna ay muhiim u tahay in si weyn haatan loo bogaadiyo. Witkoff ayaa waxa uu yiri ra'iisul wasaare Netanyahu waxa uu qaatay go'aan adag. Maanta waxaan joognaa halka aan joogno sababtoo ah waxa arrintaasi horseeda buu yiri cadaadiska uu saaray Falastiiniyiinta oo maanta ku qasban inay wada xaajoodka galaan. wiilka uu sodonka u yahay Trump ee Kushner lagu magacaabana waxa uu yiri Netanyahu si heer sare ah ayuu uga shaqeeyay wada hadallada, waxa uu muujiyay adkaysi iyo hoggaan, sidaa daraadeed waa nin mudan in sumcad siyaasadeed iyo taageero uu helo. tani waxa la leeyahay waa taageero siyaasadeed oo muuqata sida falanqeeyaasha siyaasaddu ay ku doodayaan. qabiirka arrimaha bariga dhexe ee Xasan Mahrij ayaa waxa uu yiri sawirka Witkoff iyo Kushner waxa uu calaamad muujinaysa u yahay taageero toos ah oo Mareykanka siinaya Netanyahu xilli uu ku sugan yahay xaaladda siyaasadeed ee adag ee ka hor doorashooyinka Israel ay geli doonto sanadka soo socda. Mahrij waxa uu tilmaamay in joogitaanka xubnahan kooxda Trump ay tahay fariin u dirayso bulshada Israa'iiliyiinta, taas oo sheegaysa in Netanyahu wali yahay hogaamiyaha ugu saameynta badan ee leh xiriir adag oo toos ah Washingtonna ku xiran, isla markaana wali gacanta ku haya kaalmada istiraatiijiga ah ee Mareykanka. maruu ka hadlaya Mahrij qabiirka arrimaha bariga dhexe arrintan waxa uu yiri inkasta oo ay jiraan dhaliilo iyo hoos u dhac taageerada gudaha, Netanyahu wali waxa uu haystaa kaarka ugu awoodda badan taageerada Mareykanka, kaas oo u adeegsanayo in uu muujiyo inuu yahay qofka kaliya ee awooda in Israel uu ku hogaamiyo xilligan adag. marka si guud loo eego arrintani waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka uu hadda ku jiro marxalad adag oo xasaasi ah. dhinaca kale marka aan fiirino dhaqdhaqaaqa hubaysan ee Falastiiniyiinta ee gacantooda laga saarayo maamulka magaalada go'doonsan ayaa waxay caawa direen fariin xooggan oo adag, waxaana sidoo kale ay ka hadleen ciidamada Israa'iiliyiinta ee ku sugan qaybo ka mid ah dhulka magaalada go'doonsan. sida uu sheegay Muuse Abu Marsuuq oo ka mid ah hoggaanka sare ee xafiiska siyaasadda ee kooxda hawsha isweydaarsiga maxaabiista u dhaxaysa labada dhinac ayaa la filayaa buu yiri in Isniinta soo socota ay bilaabato, taas oo qayb ka ah wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta ee dhaqan galay maanta oo Jimco ahayd. Abu Marsuuq waxa uu la hadlay telefishinka maxalliga ah ee laga leeyahay dhulka Falastiiniyiinta, waxa uu yiri isweydaarsiga maxaabiista ayaa laga yaabaa in si rasmi ah u bilaabo Isniinta. Waxay intaa ku daray in dhinacooda ay go'aansadeen inaysan qaban wax dabaaldeg military ah ama mid siyaasadeed oo ku saabsan arrintaasi, sabab la xiriira ilaalinta buu yiri xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan halkaasi. faahfaahinta heshiiska ayaa waxaa ka soo baxaya warar kala duwan. heshiiska xabad joojinta ee u dhaxeeya labada dhinac ayaa dhaqan galay 12kii duhurnimo maalinnimadii Jimcaha aynu ka soo gudubnay kadib markii golaha wasiiradu Israa'iiliyiinta ay si buuxda u ansixiyeen qodobada heshiiska oo ay baahiyeen idaacadda Israa'iil. ciidamadana waxa lagu yiri Falastiiniyiintu waxay sii dayn doonaan maxaabiista 72 saacadood gudahood kadib ansixinta. dhinaca Falastiiniyiinta waxay sidoo kale soo gudbiyeen macluumaad buuxa oo ku saabsan askartii dhimatay iyo kuwa gacantooda ku jira, waxaana ay la wadaageen kormeerka caalamiga ah Masar, Qatar iyo Turkiga, iyo sidoo kale hay'adda Lanqayrta Cas oo dhinacyada maxaabiista ay ku wareejin doonaan. dhinaca Israa'iil waxa ay rumaysan tahay in 48 maxbuus ay ku sugan yihiin gacanta Falastiiniyiinta.
20 ka midna ay nool yihiin halka in ka badan 11,100 maxbuus oo Falastiini ah ay ku jiraan gacanta Israa'iiliyiinta kuwaasi oo wajahaya gaajaysiin jirdil iyo dayac caafimaad sida ay sheegayaan warbixinta xuquuqda aadanaha ee la helayo goobaha ciidamada Israa'iil ay wali ku sugan yihiin ayaa walaac kala muujinaya 53% dhulka magaalada go'doonsan ciidamadaasi ayaa haya iyadoo Abu Marsuuq uu tilmaamay in ciidamada Israa'iil qayb ka mid ah ay ku laabteen dhulka loo yaqaano diilinta jaalaha ah waxa dhinaca kale uu diiday ciidamo Mareykan ah inay soo galaan gudaha magaaladaasi balse waxa uu yiri waxa ay joogi doonaan goobaha ay ku sugan yihiin Israa'iiliyiinta arrimaha gudaha Falastiiniyiinta ayuu ka hadlay waxa uu soo jeediyay dhinacyada kala duwan inay isugu imaadaan shir heer qaran ah iyadoo hal dhinac oo kaliya aanu talada yeelan doonin laakiin waxa uu xariiqay oo hoosta ka calaamadiyay in aanay jirinba kaalin ay ku yeelan doonaan maamulka magaaladaasi sida ku cad heshiiska labada dhinac ay gaareen